soo dhawaada asxaabay waxa lagu tilmaamaa xoriyad la'aanta qaabka ugu xun ee qof dambi lagaga jaro xitaa haddii wax walba qofka lagu geeyo xabsiga lagu xidho dhexdiisa haddana wuxuun baa ka maqan waxaasina waa xoriyad xabsiyada aynu barnaamijkan kaga hadli doonaa waa qaar haddaad gashid aanad ka soo bixi doonin adigoo nabad qaba waxaana dhici kartaba inaad ku dhimato waxaa ka dhex dhaca waxyaabo qaar aanad suuraysan karin oo liddi ku ah bilaadantinimada sii daawo muuqaalka si aad uga bogatid liiska xabsiyada caalamka kuwooda ugu argagaxa iyo yaabka badan xabsiga Bangkwan xabsigan waxa uu ku yaalaa wadanka Thailand waxa la ogyahay inay ku jiraan maxaabiis badan oo ajaanib ahi inta badan xabsigan wax la galiyaa burcada qaabka sharci darrada ah oo booba alaabaha wuxuu ka mid yahay xabsiyada wadanka Thailand ku yaala kuwada ugu ilaalada adag dhanka amniga waa mid loogu talagalay in kaliya lagu xidho tuugta iyo dambiilayaasha caanka ka ah wadanka maxaabiista xabsigan ku jirta noloshooda waa mid aad u liidata markay ku cusub yihiin xabsiganna waxa loola dhaqmaa qaab aad u xun waxaana 4 bilood ee xukunkooda ugu horeeya lugaha looga xidhaa silsilado ficilkaas waa mid aad u xun laakiin waxa ka sii xun qaabka loola dhaqmo maxaabiista dilka lagu xukumay ee sugaysa kuwa dilka sugayana ilaa maalinta la dilayo laga gaarayo waxa si isdhaaf looga silsiladayaa gacmaha iyo lugaha maalintii maxaabiista waxa la siiyaa bariis jaya iyo xoogaa khudaara qofkii aan doonayn cuntadaasina waxa uu helayaa oo xabsiga ku dhex taala cafeteria laga cunteeyo laakiin maxaabiistu ma awoodaan inay iska bixiyaan lacagta ay cunnada ku iibsanayaan xabsigan waxa ku xareysan maxaabiis ka badan 35% intii loogu talagalay cunto caafimaad leh ma cunaan maxaabiis badanina waxay qabaan xanuuno halisa intaaba waxa ka sii daran inaanu xabsigana lahayn tuumbooyin wasakhda dibadda uga saarta xabsiga ku yaala jasiiradda Bitak ruushku waxa uu caan ku yahay inay ku yaalaan xabsiyada ugu halista badan adduunka xabsiyada ku yaalaana badankoodu waa kuwii ka haray midowgii Sofiyeedka waxaana ka mid ah xabsiyada midowgii Sofiyeedka ka haray midkan aynu soo qaadan doono oo jasiiradda Bitak ku yaala arrinta xabsigan warkiisa xiisaha u yeeshay waa inuu gabi ahaanba yahay mid sirtiisu qarsoon tahay waxa kaliya gudaha u gali kara xabsigani waa qof dambiile ah oo la xukumay wadanka ruushka intiisa kale uu ka go'doonsan yahay looma ogola inuu qof kaliya soo booqdo maxaabiista xabsigan ku xidhan suurtagal ma aha in laga baxsado xabsigan waxa uu ku yaalaa bartanka bad lagu magacaabo badda cad oo markasta baraf ah sidaynu hore u soo sheegnay xabsigani waa mid go'doon ka ah dalka ruushka iyo caalamkaba xitaa maxaabiista la geeyaa isma ogaato oo waa la kala qariyaa sidoo kale waa la kala bedelaa waxaana maalintii lagu hayaa meel cidla ah waxa la dhibaatoodaan haraad goobta oo biyo la'aan awgeed maxaabiista waxa la siiyaa cunto aad u xun meeshan qabowga badan ee lagu hayaana kama jirto qalab kulayliye mushkiladda cimilo xumidu waxay ka jirtaa xabsiyo badan laakiin wadciga xabsigani maaha mid loo dulqaadan karo halkuu xilliga jawiga heerkulku iska caadiga yahay uu yahay 12 digrii Celsius xilliga jiilaalkana uu -15 ka hooseeyo inkastoo culimada caafimaadku sheegaan inaan cimilada qabowga badan lagu gaboobin haddana maxaabiis badan ayaa qabow dartii ugu dhinta xabsigan xabsiga ku yaala jasiiradda Rikers jasiiraddan xabsiga ahi waxay dhacdaa duleedka New York Mareykanka waxa lagu naanaysaa xabsigan jasiiraddii xabsiga ahayd maxaa yeelay waxay ka kooban tahay 10 xabsi oo kala gaargaara halkii maqsin waxa uu deegaan u yahay 12 qof dhammaan dambiilayaasha xukuman ee xabsiyada gobolka New York soo rabshana waxa loo soo wareejiyay xabsigan Rikers sababta awgeed waxa inta badan xabsigan ka dhex dhaca weeraro mararka qaar dil gaadha waxaana inta badan ku dhinta meesha maxaabiista iyo xitaa ilaalada xilliyada qaar ay dirirtu dhex marta maxaabiista ilaalada ayaa inta badan lagu dhaleeceeyaa inay ka dambeeyaan dagaalka u dhaxeeya kooxaha maxaabiista laakiin askarta ilaalada ah oo kaliya awood ku malaha xabsiyada balse waxa kale oo xabsiyada ka dhex dhisan fallaagooyin koox u qaybsan waxaana halis badan ku jira qofka ayaamaha hore xabsigan ku cusub isagoon kooxaha burcada ah midna ka tirsanayn xabsiga Gitarama ee ku yaala wadanka Rwanda waxaynu wada ognahay taariikh xumida dawladda Rwanda waxa dalka ka dhacay dagaal sokeeye oo lagu hoobtay dambas ka dhigay wadanka galaaftayna nafaha malaayiin dada dagaalku u dhamaaday laakiin rabshada iyo qalalaasaha ka jira xabsiga Gitarama wali way jirtaa oo may dhamaan xabsigani waa xabsi aad u yar oo lagu talagalay in lagu xidho tiro yar oo maxaabiis ah laakiin waxa buux dhaafiyay kumanaan maxbuus oo hadda ku sugan xaalad bilaadantinimo midii ugu xumayd badanka maxaabiistu waxay u geeriyoodaan gaajo awgeed ama cudurrada ku faafaya xabsiga dhexdiisa xitaa waxa jira warar sheegaya inay maxaabiistu dileen mid iyaga ka tirsan kadibna ay cuneen gaajo daraadeed waxaad moodaysaa filim cabsi oo khiyaaliya laakiin waxaas ayaa ka dhex dhaca xabsigan asal ahaan waxa loo dhisay in lagu xareeyo 500 oo maxbuus haddana imika waxa ku xareysan maxaabiis kor u dhaaftay 4000 taasi waxay xabsigan ka dhigtay mid saxmad badan oo ay fududahay in markiiba cudur la kala qaado xogaha qaar waxay leeyihiin xabsigani waa xabsiga ugu nolosha xun qaaradda Afrika waana mid maxaabiista ku jirta ay ku nool yihiin nolol geeridu dhaanto xabsiga Dilasante Faransiisku waa wadan dalxiis oo aad u dhul qurux badan magaalada Parisna waa wadnaha wadanka waa magaalo habeenkii wada dhalaasho oo ay ku yaalaan qaar ka mid ah hoteelada iyo goobaha dalxiiska ugu fiican laakiin waxay leedahay waji kale oo dadka ka qarsoon waana xabsiga bartamaha magaalada ku yaala ee Dilasante
waxaa la furay xabsigan sanadkii 1867 waana mid ka mid ah xabsiyada ugu xun qaaradda Yurub. xabsigani waxa ku yaala xaafadda 14aad ee magaalada Paris waxaanu ka samaysan yahay dhisme aad u weyn oo laga baxsan karayn. waxa lagu xidhaa burcadda ugu khatarsan Faransiiska. waa mid aad loo ilaaliyo waxaana tiraba dhowr jeer guuldareystay isku dayo maxaabiis kaga baxsanaysay. sanadihii ugu dambeeyay waxa dhacay mudaharaadyo lagu doonayay in albaabada la isugu laabo xabsigan, laakiin taa cagsigeeda dawladdu waxay ku dhisay dhaqaalihii xabsiga, taas oo niyad jabisay dadkii doonayay in la xidho. xabsiga Cotonou Benin waa wadan yar oo dhaca galbeedka qaaradda Afrika oo aan xabsiyo badan lahayn. xabsigani waa kan ugu weyn uguna xun wadanka. waxaa lagu talagalay in lagu xidho 400 oo maxbuus, laakiin waxaa hadda ku jira 2400 oo qof oo rag iyo dumarba leh. waxaa in badan soo noqnoqday maxaabiista habeenkii la dhibaatoonaysa xaaladaha neefqabatinka, waxaana arrinkan sababay dadka xad-dhaafka ah ee xabsigan lagu hayo, iyadoo maxaabiista lagu qasbay inay koox u seexdaan. duruufta xabsigan ka jirta aad ayay u adag tahay. in ka badan 80% maxaabiista xabsigani waxay sugayaan in la maxkamadeeyo, laakiin maxkamadayntooda waa laga cagajiidayaa waxaanay qaadanaysaa sanado badan. sababtuna waa nidaamka garsoorka wadanka oo burbursan. dhaqaale ahaan wadanka xaalkiisu aad ayuu u xun yahay, taasina waxay si xun u saamaysay maxaabiista marka lala barbar dhigo dadka caadiga ah. heer ay gaadhay qaar ka mid a maxaabiistu inay yidhaahdaan meel aanu qabanno ma haysano oo aan xabsigan ahayn. xabsigan intuu jiray waxaa ku dhex dhintay tiro maxaabiis oo aad u badan, waxaanay u dhinteen xanuuno ay ka badbaadi karayeen hadday daryeel helaan, halka ragga iyo dumarka la isku dhex daray xabsigani ay tahay arrin ka baxsan bini'aadantinimada oo aad u fool xun. xabsiga La Sabaneta inta badan wadanka Venezuela waxaa loo arkaa wadan had iyo jeer rabshadi ka jirto, waxaana arrinkaa ka markhaatiya burcadda habeenkiisa soo tunta shaariiciyada magaalooyinkeeda. maadaama ay wadanka burcaddu ku badan yihiin, waxaa laga maarmaan noqotay in xabsiyo adag oo burcadda lagu hayo la aasaaso. xabsigan La Sabanetana waxa uu ka mid yahay xabsiyada la sameeyey kan ugu weyn uguna khatarsan. waxaa lagu xidhaa dambiilayaasha ugu halista badan wadanka, waxaanu madaxweynihii hore Venezuela ku sifeeyey xabsigan albaabadii naarta. waayihii dambe maxaabiista oo xabsigan ka tan badatay iyo dawladda oo dhaqaale ay ku maamusho weyday waxa gacanta kula wareegayba maxaabiista. maxbuus kastoon ka tirsanayn kooxna naftiisu halis ayay ku jirtaa. maxaabiis iyo ilaalo badan ayaa ku dhintay rabshado kala duwan oo ka dhacay xabsigan. sanadkii hore oo kaliya 600 oo qof ayaa ku dhintay xabsigan. 2013 maxaabiista xabsigan ku jirtay waxay isku dayeen qorshe ay qoryaha kaga boobayaan askarta ilaalada. isbuuc kaliya waxay ku dileen 16 ilaalo. waxay qaateen qoryihii ugu waaweynaa xabsiga yaalay, waxaanay dhulka hoostiisa ka qoteen god ay ku baxsadaan. laakiin miishankaasi uu ka dhicisoobay maxaabiista, waa la soo qabtay waxaana dib loogu xidhay xabsiga. balse waxa weli xabsiga ku yaala godadkii dhulka hoostiisa xilligaa laga qoday oo badeecooyinka kontrabaanka ah si qarsoodiya xabsiga loogu soo geliyo hadda. iminka jeelkani wuxuu isku bedelay xero gaangis oo kale, aaminna uma aha maxaabiista iyo xitaa askarta ilaalada. ma igala heshaan mawduucan?